السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت الرمان سود هذا وعناجي يمر لبعض عاو حيدين ودنا حسوس وايو برسمات ماليزي لا أرت السمالة الحين ترى هذا بدواكي هره هذا وأنتي لهن فنتي ما أنت حن أنا واحد ضبط أنا كنت رأينا معي كعوان كل يحاول مال أنت ورا راعينا مال أولا ما يستنتج هاي وحي مرتيها ولا قصة هلاي وحي حكمها ولا صور شيء فنتي عاوة صاحب هذا نقول حرن وحنو وضنا حسوس آد نقوي تراياشي هره أبوانين تو هره حكمة إنه قتجنا وحرمنا واحد دب حسوسنا صاحب هذا نقول حرن رنتي بل أنت أنا كشيء كنا عن فرانقين هنجعلنا هين تحود داوديشو إني برهرت وحنو وضنا إنه هذا قصة أركان كده ما كسر أركان أنت بس كوصل أنت بس كوصل وما لو شيء جنبه أنا ما لو شيء في السحاب ما مش أنا هذا سامعنا بس كورجع ما هي مش دقيقة إندي نوع قصة أرك هاي نرسو أكو أبغى أقول لك كينو يا إلهنا قبنا لك نرسو أصلا ورنا أنا لكن هذا توحير أبو الدعوتان بابا فهمي سامباش صور دمست السلام عليكم هاي دوار مقاليك استوى ما تدعى الله يرهلا بلنا هاي أنت لما كوشي كذا واحد عسومة دعك مقنان أنا بالله يربى هني يا ولا كوكيريا شيء فيش من اللي ما كوكيريا رجع وقطعنا أو إسلام الكلام وحاجة بلنا كسر دقيقة أوكي waxaan ku weydiiyey aabo horta raan number baad nasiisay lambarkan ba muu ahayn caawo dhawaan raadinayna guriga ما كنت waxba khaldano ingiriis kana aqoon laakiin aabo gurigan quruxda badan yaa iskale waa guri isku dhacay gurigana waxa iskale gabadhan ilmaabtinahay ayaa leh beautiful hayo house gurigaygii ayay diiday maaragtay hooyadaa ay tiri ma imanay gurigiisa waan ka dhaartay marka gabadhii baan maanta faq baan ku leenahay reerkii oo dhan baan isugu yeedhay maanta waxa iga maqan saxane iyo saafi iyo sareeyo iyadu imtixaan lahay okay maanta reer maxamuud inuu ku kala baxo arinta runta loo sheego oo runta loo sheego okay هاي خلاص شو okay runta ana هنا فريسي aba ma la hadli karaa يا الله هذا لابو هلو hello mom Hello. how are you good nabad fine haye waxaan ku iri hello sister how are you doing good how are you fine are you fine الدنيا waxaan ku iri maxaad noogu yeertay waxaan ogahay aniga iyo adigu inaanan hadal ku heshiinayn maxaad noogu yeertay maanta waxaa taa ii daba taalla what do you mean in hadal ku heshiinay waxaa taa ii daba la wait me a minute waxaa taa ii daba taalla suuqa waxaan ka maqlay dhuhdaas waxay tahay gabadhii siraad ahayd iyo saxanad anigu saxane iyo wax la yiraahdo ma aqaan baad hoosta iskaga wada taasoo hadday dhacdo waxaan kaaga ballan qaaday wax tol ku kala tago oo Soomaali ay ku kala tagto oo aan ku kala dhimanno inay ka dhacdo baan ka ballan qaaday hadday mar dambe soo gaarto xataa xantaas oo kale waxaad noogu yeertay sheeg hooyo dhageyso hooyo qof islaam ah sumatihiin waana ahay horta first ma kula hadli karaa hooyo say what you want okay soo dad islaam manihin waad noo jeedaa islaamna hooyo waxaan rabaa kitaabka dhigaya wiil muslimo oo walaalkay oo isla soo kornay oo wanaagsan oo diinta ku wanaagsan oo fiican kitaabka ii diidaya ama isu ka diidaya ayaan hooyo caaw ka rabaa mid kale waxaan rabaa nin aan diinba ku dhalanin oo hooyo waxa la meel wuxuu yahay aanan garanaynin waxa gurigeena dhexdhigeed gabdhaheena raalli uga tahay eed hooyo isugu wada raacdeen kitaabka dhigayaan hooyo ka rabaa no absolutely you are wrong yes waxaan anu garan lahaa inaad waalan tahay iyo inaad soo wadato maxaa hooyo korka ka saaray 24 sano korka ka saaran tahay markaan ku arkay cagta u saartay walaal xisho oo isku falo caasi waalideen ha noqonin waa hadii kala waxa doonaysaa inaan isrifnayno madax isqabsan la dhageyso ma baararka aad ajnabiga la wareegayso ayaan anigu caasi ku noqdeen leen reerkeen iyo gurigeena laga daayo taasa ku xumaaday la ajaanibka waa la yaqaan handicap kana wadataan lan gaabka ayaa yaqaan oh listen to me Soomaalidu waxa la yiri been ma mahmaahda laakiin way mahmaahdaa Soomaalidu waa ta tidhi caado la gooyay cadho alle leedahay caado xun oo la raaca cadho alle leh hooyo reerka sidan aynu ka dayno sugna waa sheegtay waxa dhan baa ay keenay waxa dhan baa asaga ay keenay adiga maaha hooyo still I love you waan ku xaq dhowray hooyo baari ma iban mi laakiin waxaad wadid ma joog adaa waxa dhan ii keenay adaa waxa kan ii keenay adaa ii keenay maanta waxa kan nin miskiina oo xoolo lahayn
oo adduunyaan lahayn oo aan ahayn royal family oo aan ahayn raadsa aryaana una one poor person I don't like I like a rich man you know a royal family like me but waxa rabta inaad wax uga naaya waxaas maskaxda asiga ka galiyay baan ku yiri I don't want to hear like that waxaan ku yiri dhibaatada ay keen dhagayso habar yar dhagayso horta ilaahay baa wuxuu kugu manaystay aqal hooyadana iyo takale la joogtana aqal xumo isku dhaleen laakiin waxaan idin sheegayaa 35 years baan joognay wadankan wanaga xijaabka iisana wadi iyaduna yesterday bay timid 8 months bay joogtay waa taas hariya hoos ma ka waalatay ee cadaanka iyo casaanka iyo dhayarta moodaysa ee difay root hablihii bay kala qaydisay oo gurigii bay kala qaydisay marka ii aamu waxa ma ogey ilaahay rasuulka in looyarkayga Jim Fish iyo Laura Kani ragii baa iga maqan jaamacadan Minneapolis ka wada baxay ima taqaana aniga waxa halka ka buuxa waa warqad ilaahay rasuulka lagu garbaxay waxaan ku yiri gabadhaydana maskaxdaad ka gumaysatay shaq waxaad maanta ugu yartaan waxaan kuugu yeedhaan maanta ku sheegay anigu waxaan ku leeyahay reerkan anaa mas'uulka ah taa kula joogta isqurqurinaysa aad moodo maaragtay ismaraykanaynaysa adiga iyo sareeya waan idinka hooseeya idinka sareeya war indhaha ku firin waxaan kuu sheegayaa oon kaa dhaadhicinay kullis ayaan kuu sheegayaa mar kastaba erayadaa xunxun baad tiraahdaa you're right father like keep quiet lama jibaar baad ka soo iibsatay waxaan ku leeyahay amuurta kaaya reerkan dhibka ka daa oo ka daa haddaad ka dayn weydo tell me haddaad ka dayn weydo we are enemy you're right father aad baan ku nabaxay you are enemy yes waxaan kuu sheegayaa reerkan waxaan maanta weer run in lagu wada hadlo yes saxana waxba kaama gelin saafi waxba kaama gelin siraad waxba kaama gelin ya isku fiilan waxba kaama gelin saxana waxba kaama gelin reerkan waxba kaama gelin anuu iga gal I don't know naya abti goob joog baad ka tahay waxa dhacaya maanta waxaan kuugu yeeray familkeenaan isugu yeedho صح عبد goob joog baad ka tahay bal hadhow bay soomaali wax sheegaysaaye hadda dhawra صح عبد indication laantay kugu aragtay markii hore indication laantay waxbarashada mar haddaad imika iskuulkii dhigato oo aad grade 4 tahay miyay kaa badinaysaa ingiriisida kullis oo carabida ugu qari oo talyaaniga u hoos geli intaa ma inaan ahayn هاي aniga igu soo boodi لا صدح ويا رجي وحارة فارس وحما ما صدح ويا رجي من وان الرجال غير كيس وكوريا من وات على الرا من رفال يرادا واسيد كيجا إقربا رون إيه رايد أنا هون رون إيه رايد أنا هون إنه سرير تكوركتا سرير تكوركتا درسكو مرونا أو رقايا ليرا ما يقال الرباسكا أو ما يقال الرحلينتا رير باديو he is from bush رير باديو وي ناكرلا رقعة أو وحقرانيسا ناكرقة أو وحقرانيسا أولاد What are you talking about? What the shame bankuiri he came from the bush and he will be back to the bush maanta ayaan kuu sheegay ingiriiska inaad iga badisay kuu sheegaya waxaan kuu sheegay aniga ingiriiska igama badisay intaan isduubayaad maqlaysaa what do you know anyway lost you're right anyway mad good anytime hard nama inaad iga basaad moodi what the guys exactly how do you mean absolutely you are wrong wrong he is right you're right father أول ما حكويري كويس المينا وكان أول ما كوي no أنا كاينة كانوا يا بنيس بليسكا وعن هو الله هذا ميلتري الله هذا ميلتري وريا والله هذا اليوم إله يا رسولك هو تطريق حقه على ميلتري إلى الله والله هذا
قال هو ميليتري قال هذا ميليتري قال هذا ميليتري يقول كادي ايه وروك ايه هاي تلفون كلبت انا ولا بود ابلا ابو كادي ليش قاعد يقول قوت ميليتري وين ما يعيب ويا هاي هذا اللي يربى كوش هذا سلانتا ولا هذا اللي يضمر هاي سلانتا ولا انا اديك انت ولد هرستين هرس اسمعوا كذين زيرو هذا اللي يربى كوش إلهي كعبصة إلهي كعبصة يا أبو كادي يا أبو كادي شاك وحرب شاك وحرب dhegayso hooyo caawa doodu way dheeraanaysaa way soconaysaa waa hagaag okay habarif dhegayso allah kibirka sheegtee aadami uma fiicnee isla weynidaadani yay albaabka kaa xidhin say what you want assassina del mondo wiki andare via la ay tami waa hooyadii weeyaan qofka xishood hooyadii weeyaan bacaada garanaysa iyo mustay doonta hada talyaaniga ana qonna waana dhaafuna rinto mana dhaaf ba hana dhaaf weeye assassina del mondo ase waxay tahay qofkii khaayinka axmed waa ku sheego ayad quraan akhriya ayad quraan ee waxay qaadanaysaa qaban qaadan mayso
إلهه سوهدي إلهه نسود هذا إلهه يدي سوهدي آمين آمين هبر يروح بحسن باتها أفكار وإلهي وحكوش شوية إيه كان هبر ولا يا كاسي تو أخري وكان حلقة هذا إلهي استعيد وافتيو ماشي اللي تقول سكري يا حلقة كتبادل يا وين أبغى كيني ما ها شرف بالله شرف ويا أبتي أوكي أبتي اسكو فلان نبادي ويا هيدي ويسكو سهاجي دون تعب هو بحنا بس هو بحنا ها هي ككاري أنا قال هيقول يمين ككاري caawa tonight waa habeenkii qalinjabinta gabadhayda soo waxaan casuumay dadka la qalinjabiyey iyo saaxiibadeed iyo eedaha dariska iyo eelka iyo asxaabta so they are welcome tonight is the night of the graduation of my daughter so everyone can come tonight yeah hi mom welcome how you doing fine hi Hi, Mom. Why? What happened? صح آليات دوقات ها آليات هذا هو صح أتعود وحمد مقال كان قصر إيه معناها وعي جرين بوسوق جرا runtii ilaahay u naxariistay abwaabkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Sango oo runtii Soomaalidu yani aan dhihi karno qaamuus buu ahay hal weyn oo Soomaalidu uga jiray ilaahay qabrigiisa oo wajiyay ayaa riwaayadan iska lahaa riwaayadan waxa la yiraahdaa qabyatu qabyada labaad qabya wana jirtay oo jiraayaal hore badan ka soo qayb galeen ودي فرحوا أنا وايد أنا دعوة بيجوا الرئيس وكان أحسن في الأسواق إنما رواية دتك إلى متك عاو رواية أبوه الرئيس برأيي أنا كمان تاني أبوه القرآن هدو حنون ككري هاي ولا أرجع كلي هدي اللي لقى ورا أرجع وعفري ضد ذي جرام عفتح رواية محاك هاي قبل حي ديك أديك أضيع هاي قبل إسكديجي مصطفى أنا وحلاي متقنع أتكلم ما خلدن ما هذا موديس خفك هلا يعاون الرادري وقتها صورة ما فيري قابكي ودمر صح أتكي نرجوه إلى إنه اليوم في الأيام مصطفى كورة تلقى زمان من حراق بدون قصر بدن أنا حيو قصر بدن متقنع أضيع إلى إنه حارسة أبو سجود مركو ولي مركو إلى ده إنك رومو إلى ده هاي بوليس بمعانية marka hadalkiisu faham weeyaan oo intuu telefoon yaro nicla u soo dawo wuxuu leeyahay military guuto military hadii booliska waxa guuto military waxay nowday marka nin qabta kale leeyahay grade 4 hadii lagu yaro ingiriiska sarta ingiriiska inta ku tufto kale carabiga ku faransiis educationlaanta ku educationlaanta warta ingiriiska leeyahay taqaanaa maxaa ku dhawlay talyaaniga iyo carabiga uu isgeli wallahi horta ninkaas ma sha Allah boqol jiritaankiisa inaba caadi maahay in maantana dadka hadda jiritaanka shalay waa hore u sheegnay barnaamijka bilowgiisa waa naga diribe dadku hore hadalna waa intay dhaheen xigmada ayag un bay la tagtay marka waxaan leenahay horta xasuus wacan daawadayaasha meel kasoo joogtaan waxaa igu riwaayadan intaa ka daawaday waxaa ku jiraan horta dhowr qisooda ku jiraan fanaaniin badan baa ku jiraan oo ka qayb qaadan riwaayada oo ugu weyn yahay salaad محمد شاد سلا دربي وكجري هاي سو عن كاسوستا محو هاي كيس سجوني أو أركاني محو هاي اللي وان مدوني ميدان كيروبي ومماري كبارنا أدي هسه وهسه كوسو بلا ومارنا ما كسو تجنبه أدي وأول بلا بدون برنامج كذا وذاش هسه قيبتها كله كجرتا وحدي على قيبتها سديدة إنه كجرتا مرة واحدة لكن إسلا قيبتها هذا أنا سوق هذا نكون مجرته لكن هو سوق هذا دونا أيضا برنامج هسه waxa la yiraahdaa caruur madax ka hadashiyo marwo iyo ninkeeda ismaqlay waadebe ilaa waa madoonay meeraanka Yurub iyo Mareykanka bana waa yani macnaha ku jiro Abdi Fataax oo dhaqanka marka la fiiriyo anoo hadda wali Mareykan ma tagin iyo wadamada hadda saas u dhib badan laakiin saan qiyaasay ama sheekooyinka aan ku hayo yani dhibaatada ama riwaayada baad ku aragteen hadda sangubo kale waa tan gabadhii asaga hatta magacii ka bedelaysa nakruuma xaaskiisa ama talayso ilaahay cimriga dheereeyo kulay ayada nolol ma ku gaad fadmo marka waxay leedahay warniyow magaca Maxamuud waxa reer baadiye iska bedel magaca teeda kale guriga ka raacdaynay dhibaatada aad arkayso gabdhaha waxay leedahay cadaan ka shukaansadaan waxay ku faraxsantahay cadaan shukaansadaan
hal gabar oo gabdhaha kamid ah ayaa waxay leedahay waxaan shukaansanaya salaa derbiyo markaas matalayo wiil Soomaali ah dhibaatadu waa tan ka dhacayso marka meesha shirka la isugu dhawaanayo marka yani runtii dhaqankii iyo dhibaatada ka jirtay riwaayadaas waxaan maqalkeeda xataa qabaatay in abwaanka marka dambe xataa looga soo ceyriyay inuu Mareykanka markii because Soomaalida ayaa isku fiicanayso riwaayadii waa la turjumay dawladii la gaarsiiyay barnaamijkii iyo macnahay leedahay mugo ay ku fadhido markii la ogaaday in la yiri ninkaan kuma noolaanayo wadankan sababtoo ah wuxuu nagu dirayaaba dadka أول أبواني رواية هذا رواية ما أسكسوا بيها لكن أول كورة رواية وحلو ترى جري جري هو هاي إن برشة لو وعي جري إن وعي جري ما جالس وكله لقى هذا وكله وإنك أود من نجري الرواية ده حلا جالس نحن دوبد دميرك غلطان تهو كله حتى حد عجرت إن رواية أنت لا رسول بيه وقصح مركز تاسع كده يسوع إن محبها رواية ده مركز قطة إيه مهمة دم مركز أوقاته وأنا في رسالة هذا ما دبعت كوكين كرتها marka riwaayadii hore way ka awood badnaayeen riwaayadaha haatan hadda waa iska soo biya wax sii fiiriyo ma because of wixii dhana waxay noqdeen adduunka quality ma jiro laakiin all correct tii soo baxda waa la fiirin jiray wax muxuu ahaa lagu xiran yahay ahaan jireen wax tafatirana ahaan jirtay adana waa maldahantu waa siyaasadaysan jirtay aadiyada waa siyaasadii hadda kor ma la heesaa naftooda waxa sheeka aan ku maqlay hadda kor reer xamarka dadka reer xamarka la yiraahdo reer banaadiriga carcadka iyo dadka noocaas reer xamar isku yiraahdo banaadiriga waxay yiraahdeen riwaayad baan soo saarayna riwaayadaha marka dawladda siyad bare xilligaas xooganado kacaanka xooganaa marka macnaha ku dhex jiro waxa loo soo diray jira dad baaritaan ku sameeyo riwaayadaha tiyaatarkaas imaanayaan waxyaabahaas la jilaayo ee kala dhex baxayaan nuxur markaas madaxtooy geynayeen riwaayadu saas u dhaxayso saas madaxweynaha loo fasiraya maalintii dambe riwaayada waxay keeneen qolo oo maxay reer xamar ah oo saan jecelahay xilligaas uu hogaamin jireen Axmed Cabdi Gaashaan iyo dad noocaas ah Ways Khamiis Cabdullah iyo ninka la yiraahdo Axmed Naadigan iyo rag ay ku jiraan oo dadka reer banaadirka ah soo marka riwaayada marka la keenay riwaayadii waxa kamid ahayd hees la yiraahdo deeq muxuu yiri doora aatiri kuku riwaayada silsilada qayb ka ahayd nimanka oo waxa deeq maxaasiri kuku doora aatiri qaaq nimanka meelay u wadaanay waayeen riwaayadii waa lagu wareeray waxay yiraahdeen nimanka waxay yiraahdeen waxay ka hadlayaan bal ma fahmayo marka way ku wareer riwaayadii marka dambe wuxuu sabab يعني مركز دم ضد أو مفسرين وحيرهن أو إن بدل أكوربل وحيرهن ما كان وحي كود يبه وده زياد يو بحياة ما خديجه بعد ذلك كحد لا بعد كلام هذا هو ذلك قبل الله هستمعنا دي وحيري زياد لكن